That's beautiful, wallah. And program Kenya is amazing hour. Woof. أودي كرتي مقبضة ولا ومنها عدو كرتاري الكبير بان وقنادر كالجربانه هو جيب وعدم هي صوبك نمعدي بشبش بركو على دينو برواقو دي بانكينو هلا وحل يا حاجة صوبيا natural born خلي يا ورا شرف بينو natural born Switzerland stand up هذا هذا Hey. فيري هبله هنا بالعدود حد ماله وما بني موراني يا جانا كوب كالين وايو داكن كالين نيمان Vibing, you know. صاحب يورن وكوفي عرا how are you في عنا الحمد لله أحمد كاغا كسو دو ولاalo Subeer plus friends every night oo aan xaggan ku soo cusub asxaabteedii from different backgrounds waxa ku leeyahay Ramadan Mubarak brother Ramadan Mubarak ما daawanaysa showga yeah of course وانا مقلص si fiican وني مقلع studio ku jira dad kala maxaydan music ciyaaraya marka DA adaan cod kala maqashaan so sorry haday loud noqdaan yeah cod kala waxaan ku leeyahay wala Roblow hotaaniga Subeer ahaanteeda taageero buuxan ku ahay hambalyo especially yani hook soo soo qaadanaysid waxa ka hadlaysidna waa reality hadii qofka de lyric u fiirsado aan beatka eegano so big shout out saaxiib keep shining adduunka nada iska leh meesha kasoo Zurich iga dabagay horta Zurich iyo Switzerland ماشي Zurich waa complicated laakiin waa magaalo fiican waa magaalo wax badan waa magaalo aad weyn laakiin Somali xogaa wax yar degan inta Soomaaliya degantaad مليهن محيلاني community سيدا وسي أدق أو يعني هذه جالس لجوا جمعت Somali حاجة حاجة Switzerland system كحاجة عاد بيرا أدق is kind of complicated. That's true والله. أنتي هذا COVID-19 سعودية everybody locked down. هذا دوب سمعنا زي how you yourself. أنا بإنستغرام كان شتك مقاعدة ما شتانو. Damn. Music. وأحكي على جير. ليش بعد هذا الموسيقى؟ Little bit of your background صاحب. ضد إلى fans كأجدهم بحاجة كتيرة لكن ضد بتيرة or first time I كان little bit of background كأجا. Yeah ما قاعد يقول روبله موسى روبله. waxaan ku dhashay degmo la yiraahdo Afdam oo ku taala gobolka City dowladda deegaanka Soomaalida. Shout out to everybody from Afjano. waxaan ku soo koray magaalada Diraba. Naam. So big shout out to all dowladda deegaanka oo dhan iyo dhammaan dhalinta maxaydan reer Diraba oo dhan. marka maxaydaane waxaan ahay maxaydaane caruurtii soo taariibtay Soomaalida qaarkood yani Soomaalida badan inta Yurubta joogta we kind of yani waxaan dareensanahay we kind of like ignore the people who migrated like waxa u badan yihiin dhalinyaro wada badan yihiin dhammaantoodba mida kale markay xaggan yimaadiin like they don't have a really good connection with the people who have been here and dadka intan sii joogay ama intan ku dhashay like there's kind of discrimination so yeah waxaan ahay maxaydan caruurtii soo taagtay I'm just here now refugee as fuck and
doing my thing. waxaan maqlay refugiga sa waxaan maqlay correct me if I'm wrong Switzerland passportada ma bixiso like the Scandinavians do no sharci ma bixin hadda way adag tahay it's kind of like really hard ma rabo inaan wax badan kasii sheego waayo you know like I just want to talk about it in a music normal bilowda hip hopka 2018 oh that's recently it's kind of sanad adu 2 sano ka hor like but born natural talent baan ku oran lahaa marka it's kind of maxaydaan xogaa waa talentii qarsoonaa maba ogeyn aniga lafta true warun why daan waxaan asxaab hip hopka oo Soomaaliyeed oo 10 15 20 30 years yani almost ku jiray ama not 30 like 20 say oo aan de ilaan adigu waxa noo soo bandhigtid dadka fans ka dhan baa taqiraya de waa hit yani waa hit after hit ma waxa leedahay marka Dr. Dre wuxuu leedahay hit airka yani in 20-15 second wuu dhageysan karaa beatka then he can realize in a hastan hit tahay inaan hit tahan JC na bugiisu ku qoreta ma saas adigu weliga ahayd waa dhageysan kartaa beat this will go markaas aad qortaa mise inta qortid ba muusiga la dur saartaa maxaydani beatka marka ugu horeyso waa inaan dhageystaa otherwise I can't make the song waa inaan maxaydani marka ugu horeyso beatka dhageystaa at least laga yaabo inaan 100 jeer dhageysto maalintaa oo dhan baan dhageysan karaa then I'm just gonna start somewhere and it's kind of like maxaydani waxa badana markaan heesaa qorayo waa inaan moog yani meel kalaan galaa I'm like maskaxdayda wax kala it's kind of hard to describe and mood waa inaa gashaa ama mode whatever yani waa inaad jawi kala yeah maxaydani waa it's just like art I don't even understand as well marka xoogaha yani ano da'yara maxaydani nolol aad maxaydani adag soo experience oo sameeyay oo la kulmay marka I was just finding what to do in life in purpose you know and then I tried to make some music at the beginning asku dayna maxaydani English aan ku heeso Englishkayga aad buu xun yahay ويصير واي كدي بانسي why not of Somali good hearing with يعني Somali good day with and it was so easy it wasn't even complicated but then يعني مداهان شيغي waxaan sheegay oo wax ka yimid yani maskaxdaydii iyo qalbigayga iyo dhamaan yani wixii aan ku fikirayay waxaan maalmo dhan isweydiyo ama يعني wax walba wax kale dad kale aan ka aaminsanahay amba wax walba yani waxaan doonaan ka aaminsanahay it's just like men talk you know true wallah tan rabay aan roob la walaalo inaad iga caawisid dhalinyarada hadda ku daawanaysa iyo kuwa hadda ku daawanayaba same situation ka yimi refugee wadan aan laga yaabo inaan sharcigii la siin laga yaabo sharcigii loo diiday niyadii ka jabtay oo balwadi bilaabay whatever maxaad kula talin lahayd because one thing I love about your story yani situation kiba qaaday and you did it to the positive or you changed it to the positive ila wadiga maanta the superstar keega noo ah marka maxaad dhalinyarada kula talin lahayd oo same situation ki adigu ku jiray ama ku jira heesaygu intii fiicnaa wali ma soo sii deyn يعني هسايق بدنا waxaan ka hadlaa just the same situation like qaxootiga iyo dhalin maxaydan wax fudud ma aha adoo 17 jir adoo 15 jir inta wadankii ka soo taariibtay oo Libya soo martay oo adana yani dibaad dhimasho soo aragtay oo adana Europe imatay oo systemkan aad la sii qabsatid afkaad sii baratid laga yaabo in sharciga lagu siiyo ama sharci lagu siinin marka waxa waa inaad adoo da'yar aad experience samaysaa oo qofna kula joogin ma haysatid mentor ma haysatid waalidku maxaadani yani kuwaaniya oo systemkii kaaga gaaro wax kuu sheega
ما هيستيد يعني عيد كو غرغاريو you just alone you know Sure. a whole new world والله marka sababta awgeed dhalinyaro badan you know they got lost Sure. and it's like it's really hard to survive so ani laftarkeyga maxadan dhalinyarado dhan waxaan maxadan yani intii those who feels like alone or maybe intii kalinimo dareemayso amaba moral jab ku jiro kale you just you know I'm here I'm the same you know like just do your thing mar walba isku day inaad maxadan aad wixii karaankaaga aad qabatid mar walba isku day inaad maxadan maskaxdaada iyo moraalkaaga daryeeshid yeah that's beautiful I just want to let you know I just want to let you know I'm doing all these being you know like as an illegal migrant you know and marka I just want to let them know that you know I'm also here in the same situation so stay humble wow mashallah be beast Roble waxaan ku leeyahay dad badan oo ku daawanaya ayaad maxalada picture-kii ay ka haysteen different picture maanta helaya hoto Roble waa ka Instagram-kiisa originalka ku yaca dhamaantiinba yo su'aasheedii ugu dambeysay oo aan rabay inaan ku weydiiyo Tupac ama Biggie Tupac waxaan ku leeyahay thank you sahib thank you welcome not the one who saw it brother aad baa mahadsantiin and keep do the mashallah يعني amazing ما شاء الله والله Roble I love Roble يعني waxaan rabay inuu inala qaybsado noloshiisa one thing and guys aan rabay inaan iga dabageeyo one thing waa qofka markaad shaashada ka aragtante iyo qofna waa qof baad waxa jira dee a story behind everyone qofku wuxuu markuu wax sameynayana there's always a reason waxaan ka helay kelmaddu uu kaga dhawaajiyay oo yidhi situationka anoo ku jira ayaan positive sameeyo muusigii baan aan isku ilaawiyo oo hobbigiisa iyo love it wallahi balay wuxuu noo soo saaray remix qalanka next guest waan rabay inaad ila soo wala dhaweysaan dhammaantiinba saaxiibkii qaaliga